Hubka saxda ah ee gacanta ugu jira muwaadiniinta Soomaaliya waa mid aan la aqoon. Hase ahaatee, warbixin lagu qoray website-ka Al Jazeera sanadkii 2013 waxa ay xustay in Soomaaliya ay yaalaan qiyaastii 5,050 ilaa 7,050 oo hub ah. Qaramada Midoobay ayaa Soomaaliya saartay cunaqabatayn dhanka hubka ah sanadkii 1992. Hase yeeshee, tan iyo markaas waxaa dalka soo galay hub badan, iyadoo warbixinada amnigana ay sheegayaan in hubka ugu badan ee dalka soo galay uu ka yimid dhinaca Itoobiya. Waxaa xusid mudan in Ruushku uu yahay dalkii labaad ee soo saara hubka ugu badan adduunka oo dhan. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay 10 dal ee qori-gacmeedka fudud ee Ruushyaanka, kaasoo loo yaqaan AK-47, uu ka joogo qiime ka sarreeya $500, taasi oo markhaati ka ah sida hubku uu muhiim ugu yahay gudaha Soomaaliya, oo ah dal aan 30 sano ka badan helin dowlad shaqeysa.